wasaaradda horumarinta gaadiidka iyo jidadka Somaliland ayaa maanta wajigii labaad ee wadada isku xidha gobolada Sanaag iyo Togdheer ka bilowday degmada Garadag iyadoo halkaana ku soo bandhigtay qalab cusub taasoo isku xidhi doonta degmooyinka Garadag iyo Ceelafweyn waxaana munaasabadaasi goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda horumarinta gaadiidka iyo wadooyinka Somaliland Cabdullaahi Abubakar Cismaan gudoomiyaha banka dhexe ee Somaliland iyo maareeyaha guud ee wadooyinka waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay maamulka kala duwan ee laamaha dawladda ee degmada Garadag madax dhaqameed iyo dadweyne kale ugu horeyntiina waxa munaasabadaasi oo ka dhacaysay fagaaraha qayriyada geedka nabadda ee degmada Garadag ka hadlay mas'uuliyiinta degmada Garadag waxayna soo dhaweeyeen bilowga wadadaasi halkaas maan kaga tagayaa waxaanu leeyahay markaanu nahay degmadan markay wadaan la taagan yahay laga wadooyinkan ay ka shaqeynayaana haddaanu gobolka nahay wadadaas baa ugu qaalisan dalka wadooyinkii laga dhisay iyo ugu dheerayd waa naga qabiyo waxaan rajeey dalka waxa u soo baxay oo Somaliland rag 100 sano oo dambe wadooyinka Somaliland wadi kara 100 operator kumanaan dareewal intaas duruufahaas adag qaybta galbeedka Bareefid baa waday maanta Bareefidkii waa laga maarmay labadii dhinacba dawladii baa wadata waxaan leeyahay daawanayo wadalkaagii oo doorashadiina aan ugu timaadeen aad baan idinka mahad celinaynaa waxaanu ka mahad celinaynaa wax qabadka ballaaran insha Allah taala ay ka bilaabmi doona degmada Garadag maanta halka wadada laga bilaabayo wadadaas oo runtii muddo doora soo socotay waxaanu mar labaad aad iyo aad u taageeraynaa dhinaca kale ayaa iyana waxa ka hadlay wasiirka iyo wafdigii la socotay sida maareeyo ku xigeenka wadooyinka iyo xubno kale waxaana hadaladoodii kamid ahaa ciidda ugu horeysa waxaanu dhigaynaa imika markaynu meesha ka dareerno duruufaha aan halka uga bilownay waxaan u deenayaa wasiirka iyo maareeyaha ku dheeraan maayo laakiin uqaasha hadasho waxaan sheegayaa nin walba duruuf haysa duruufaan soo uga bilaabaynaa duruuftaan uga bilownaynaa waxa sharaxi doono madaxda iga dambaysa waxaan doonayaa in halka ka sheego maxaan wadada ku soo kordhinay maanta xafladan aanu qabanaynaa ma aynaanu idin khudbadayno ma aynaanu idin faanno ma aynaanu wax aan jirin idin sheegno waxaanu doonaynaa inaanu idin sheegno waxaanu qabanay hadday tahay wasaaradda iyo hadday tahay hay'adda oo isku mid ah oo mataana oo walaala oo wada socda waxay qabteen baan doonaynaa maanta inaan bartayda ka sheegno waxaanu soo iibinay 5 gaari oo kuwa ciida guraa oo aan hore u joogin wadada oo aan wiigan keenay waxaanu soo iibinay 4 booyadood oo cusub intuba hadda horteena taagayna waa arki doontaa waxaanu soo iibinay 4 gaari oo yaryar oo iyaguna iskarogooyina oo kuwa yaryar ah oo falahaad kale aad lagu shubo waxaanu soo iibinay halaan guruusal waxaanu totalkaas isku noqonayaa 17 gaari ayaanu wadada ku soo kordhinay horena waanigii u sheegay markii aan hadlaayay waxa weey fikirka ama initiative-ka ama halabuurka oo keenay wasiirka aan ku faraxsanahay maraduu nagu casuumay in gudoomiyihii bank sidii aan horeba sheegay hay'aduhu way isbuuxiyaan hay'adaha dawladdu gudoomiyana maanta uu ku qanacsan yahay wax qabadka baahida baaxadda wadadana uu garanayaa iyo midhihii hadii la ku roonyahay maalgelintuba mataqaana barbilowga maanta ay leeyihiin bidmillah halkan laga bilaabo ilaa Garadag iyo halka ay wadadu taagan tahay oo marka laga yimaado mataqaana ceel wanaag ujeedada maanta halkan uu nimi horaa xafladii looga sheegay imika waxa weeyaan aragno gaadiidkii iyo qalabkii la soo iibiyay oo xageena dambe iyo xageena horebe teedsan ma hadaan wax iska wasiirka oo isagu fikirka keenay inaanu maal gelino anaguna waanu ka aqbalay alxamdulillah rabbil caalamiin wadadan eergaabo iyo burco waxaan filayaa in sidii loogu talagalay si ka dhaqso badan ay ugu dhammaan doonto ilaahay waanu baryay waanu ducaynaynaa bogaadinaya runtii rajaynaya inay tahay talaabo fiican waxaan jecelahay inaan munaasabadan mar labaad ugu mahadnaqo gudoomiyaha bangiga dhexe Somaliland oo suurtagii Farxad Cabdi Nuur telefishinka caalamiga ee Home Cable TV degmada Garadag